madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa masjidka jaamaca ee Hargeysa isaguna kula tukaday boqolaal qof oo shacaba isaga oo madaxweynuhuna u duceeyay dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda Islaamka ah wuxuu si gaar ah hambalyo ugu diray shacabka Soomaaliland munaasabada Ciidul Adha awgeed warbixin arrintan ku saabsan Xamza Dabaare ayaa nooga soo diray Hargeysa Allahu akbar kabiira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta shacabka ku dhaqan caasimadda Hargeysa kala qayb galay tukashada salaado Ciidul Adha madaxweynaha way weheliyeen xubno kamid ah golaha wasiirada taliyayaasha kala duwan ee ciidamada maayirka caasimadda madax kala duwan oo xukuumadda ka tirsan oo ay la tukadeen shacabka salaada Ciidul Adha way ku tukadeen masjid jaamaca weyn ee caasimadda Hargeysa madaxweynuhu halkaas ka jeediyay khudbad kula dardaarmayo inay isku duubnaadaan danta guud iyo horumarka ka wada shaqeeyaan ilaahay waxaanu ka baryeynaa inuu dalkeena barwaaqo roob khayr qaba oo duufaan iyo dhib lahayn iyo duuyo baraka leh iyo caafimaad naga siiyo intaa waxaanu dhaafay danaheena walaalayaal waxaanu u baahanahay inaynu danaheena aad u ilaalino adduunyadu dhibaato way leedahay waagi bariyo dhibaato jirta oo la xalinaya dalkeenu dhaqaalihiisa adduunka waxa lagu tilmaamaa inaynu dhaqaalo badan ku fadhino bad leh beerkay leh xoolo leh cadceed leh ciid leh inta bari aad wax ka soo saara inta baynu leenahay haddana wali dalkeena waxa lagu tiriyaa ama inaguba aynu ognahay in uu ku badan yahay inuu u badan yahay dayar ama sabool laga yaabo maalintii wuxuuna inuu ku dadaalayo waxaan ugu badan shaqo la'aanta dhalinyarada wax baratay waxaasoo dhan waxaynu ku xalili karnaa inagoo isu geynaa caqligeenna iyo cududeenna qalbigana iska aamina oo shakiga weli dadka ku jira colaadihii hore ku reebeen ee kala shakiga cid waliba cid iska ilaalinaysa inaynu ka bogsano waxaynu dhibaatooyinkeena haysta waxa ugu badan haddii laba qof isqabsadaan markaaba waxay u rogmaysaa dad badan oo ku soo urura oo u rogo macnayaal badan u roga oo dad badan gaarsiiya taa in laga duwaantoobo oo wixii dambi dhex maraa ay noqdaan laba qof si islaama oo danguuda loo qaado is-aaminaadda kala shakiga reebel baa halkan degan halkan reebel baa degan inaafici mayso Soomaaliland oo markay isku darsanto ay wixii isu geysay adduunka wax ka yar noqonaysa marka waxaan leeyahay dadku ha iskaashado si ay uga baxno dhibaatooyinka jira talabaad waxay nagu soo batay mukhadaraadka waxaan maskaxda dooriya ayaa aad iyo aad inoogu soo bata ummad maandooriya lagu saliday oo ubadkeedii kuwiisa ka cay lagu talaalaya sanadaha soo socda tamar yeelan mayso wuu dhaafay magaalooyinkii mukhadaraadku oo wuxuu tagay goboladii iyo degmooyinkii kuma joojin karna ciidanka booliiska oo maalin walba waraaq khamriga soo qabta ama xashad meel eryanaya haddaynaan dhammaanteen u guntan waa aafo weyn oo mustaqbalkeena baabeynaysa haddaynaan iska kaashan oo aynaan iska waanin oo aan maskaxda dadka wax laga bedelin oo aan mukhadaraadka si caqliyana loola dagaalamin mustaqbalkeenu khatar ku jiraa waana inagu baahday gobol kasta meel kasta oo fog tuulo kasta way gaadhay taana waxaan u baraarujinayaa inaynu aad iyo aad uga digtoonaano waxaa kaloo inuu u baahannahay inaynu iskaashano oo gaar ahaan ciidamada amniga ee dalka ilaalinaya ee dantooda ku daayacay ee ubadkooda dayacan yahayna in lala shaqeeyo oo gacmaha la isqabsado wanaaggeenu saasuu ku imanaya dadweynuhu haddii uu fahmo dhibaatooyinka jira waynu iskaashan karaynaa adduun lagu filan waynu leenahay shaqooyin waynu abuuri karnaa haddaynu maalqabeenkeena iyo dowlad iyo sheekh iyo nin xooga isu tagno waynu gaari karnaa waxaan u baahannahay inaynu taa xoog saaro oynu caqligeena iyo qulubteena midaynaan doonaya ciidamadeena nabadda inoo ilaaliyana dhibaato ay qabaan makaashado oon maalin walba dhagax iyo tuuryo iyo xabad lagu dili waa ayaan daro dad nabadna doonaya dadkii nabadda u ilaaliya la dagaalamaya maalin walba